jaamacad Hiblaayo ka soo baxay kulliyad Hiblaayo wax ka bartay ee ay ka noqoto mid noloshaada wax ka bedesha mid dhaqankaaga wax ka bedesha mid dhaqaalahaaga wax ka bedesha mid dadka iyo dunyada kugu hareeraysan aad wax ku soo kordhiso aad wax ku qabto. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاجربح وحول بو أتقبنيسو إن أدو حول بو أتقبنيسو أدو هاجربح داي وحي كمي تهي أساسك يركم هذا مهمسن جوش النلشة وحبرشة أد برانيسو وحلقة ربا إن أدو هاجربح دو سوى أكسن أيسن كان نقول أوكلية هبل جامعة هبلايو كصوب بحي كلية هبلايو وحكبرتي أي كان نقطه mid noloshaada wax ka bedesha mid dhaqankaaga wax ka bedesha mid dhaqaalahaaga wax ka bedesha mid dadka iyo dunyada kugu hareeraysan aad wax ku soo kordhiso aad wax ku tarto. sidoo kale shaqada aad ka shaqeynayso iyo xirfadahaaga aad subax kasta ugu kalaahdo si aad nolol maalmeedkaaga aad uga raadsato iyadana waxaa laga rabaa in aad u hagarbaxdo. waxaad uga hagarbaxaysaa marka ay noqoto inaad ilaaliso waqtiga, waxaad ugu hagarbaxaysaa marka ay noqoto jadwalkaaga maalinlaha ah waxa laga rabo inaad qabato oo aad u qabato sidii loogu talagalay. in aad tahay nin qorshaysta shaqada uu qabanayo oo yaqaana waxa uu qabanayo, saacada uu qabanayo, xilliga loo baahan yahay in uu qabtana ku qabta. waxa kale oo laga rabaa inaad u hagarbaxdo sidoo kale familkaaga, qoyskaaga iyo caruurtaada oo aad ugu hagarbaxdo inaad u qabato wax walba oo ay u baahan yihiin inaadan waxba aadan ka hakran. waxaa kaloo laga rabaa in aad muuqaalkaaga iyo jirkaaga iyo caafimaadkaaga aad u hagarbaxdo oo sida ugu wanaagsan ee aad maaragtay u samayn kardho aad u samayso. nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis shariif wuxuu ku leeyahay in allaha ta'ala yuhibbu إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ومعنيه سيهي إلهي وحجعليه وحول البا إن لو قبطه سيدا أغوان أكسن إن هو حبال لغا حكرا إن وهاقر بحيستو إيا الشيء إن أدو قبط سيدا أغوان أكسن كليكو مكوبنا نولا شينا إنت أنو جيدنو إيا وحا نول وآنو هاقاتينينو إيا وحا حتى وحا الله إلا قربا تذكر دينتي إيا ميشا أنكو آسينو إن أنو هاقاتينو. waxaan arintaa ka fahmi karaynaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa ka saqiiray sida aad ogtihiin siirada aad ku akhrisateen wiilkiisii ibraahim ahaa markii la aasayay marka raggii iilka ku jiray ayaa waxay ka tageen meel yar oo la rabay inay gufeeyaan, waxay ka tageen dhoobo la rabay inay meel geliyaan. nabigu sallallahu alayhi wasallam meeshii buu tilmaamay wuxuu yiri meeshaan dhoobada geliya. nimankii marka godka ku jiray waxay u qaateen wax kale u qaateen. nabiga su'aal weydiiyay waxay ku yiraahdeen haddii hadda inta yarta laga tago meesha banaan haddii laga tago ma qofka meydka bay dhibaato ku tahay. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maya, laakiin wax walba la hagaajiyo la qurxiyo waxa ku raaxaysta isha qofka nool. isha qofka nool macnaha waxa weeye qofka bini aadanka wuxuu jecel yahay wax dhameystiran, wax naaqisa ma uu jeclaa. wax kastoo marka aad qabanayso oo aad u hagarbaxayso oo aad dhidid iyo daal aad u galayso waxaa laga rabaa in aad ku lamaaniso oo ay markasta la socoto inaad adeegsato cilmiga. cilmigu iyo aqoontu waxay ka qayb qaataan in ay yareeyaan juhdiga, in ay yareeyaan daalka, dhinaca kalena waxay kordhinayaan tayada iyo wax soo saarka. sidaa daraaddeed waa inaynan ilaawin wax tayeynta iyo wanaajinta iyo inaad shayga u qabato si hagar la'aana in markasta ay ku lamaan tahay inaad isticmaasho cilmiga maanta adduunku uu horumarka ku gaaray. kaliya ma ahan inaad maaragtay dadaasho oo aad didido oo aad tiraahdo waxbaan qabanayaa maanta waa laga baxay. baabuur waxaad arkaysaa weyn oo alaab badan ay saaran tahay oo hal qof wado, halkaa qof baa alaabta ka dejinaya saarayana
waa laga baxay maanta in dad fara badan la isticmaalo saa daraadeed waa in lagu kabaa aqoon waa in lagu kabaa shaqada wanaajinteeda iyo wax kastoo aad qabanayso inaad wanaajiso inaad ku kabtaa wax walba in la cilmiyeeyo maanta oo adduunku uu cilmiyeeyo wax kasta oo aanu qabanayno waxay culays dhinaca kale ku tahay bini aadanka ruuxiisa ayay culays ku tahay waxayna culays kaga tahay masalan shaqooyin badan oo maanta dadku ay u kalahaan oo ay maciishadooda ay ku dabirtaan waxaa soo socota xilli aan fogeyn in lagu bedelo waxaan bini aadan ahayn robot in lagu bedelo ayaa dhici karta saa daraadeed in wax kasta la cilmiyeeyo ruuxeeda waxay leedahay dhibaatooyin laga yaabo in ay saameyn ku yeeshaan bini aadamka gunaanadka iyo gabagabada casharkeena maanta waxa weeye sidii aanu oran jirnay waa inaad qorshaysataa go'aansataa wax walba aanu qabanayno ama wax kale kastoo aad qabanayso in aad si hagar li'iya u qabato in aad sugto oo sida ugu wanaagsan aad u qabato midda labaad waa in wax walba aanu qabanayno ay ku lamaan yihiin ay aqoon iyo maaragtay khibrad waynu ku lamaan yihiin sidaan hore u sheegnayba juhdigana ay u yarayso wax soo saarka iyo tayada iyo qurxintuna ay u wanaagsanaato casharkeennii maanta intaasaan ku okeenaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu